waxaanan markasta xasuusinaynaa mas-uuliyadooda oo ah inay sharciyadii noo dejiyaan. waxaan kaloo aan kula talinaa oon u sheegaa markii saan oo kaleeto kalfadhiga uu xirmo in bulshadii lagu noqdo oo bulshadii la aado, laakiin aan safaro kaloo meelo dheerdheer iyo Nairobi iyo meelo kale inaan la aadin, laakiin bulshadii lagu noqdo. sababta aan taas u leeyahayna waxaa waaye indhahaygaan kusoo arkay. waxaan aad u soo maray hadda gobollada South West, waxaan kaloo soo maray Jubbaland, waxaan kaloo soo maray Hirshabeelle. saddexdaas gobol kasta state kasta dowlad goboleed kasta waxaan ka tegay 4 degmo. mana kusoo arkin xildhibaanadii aqalka golaha shacbiga ee loo xiray ee hadda fasaxa ku jiro deegaanadooda kuma soo arkin. deegaanada in wax laga qabto waayo. waxaan u tagay shacbi runtii dowladooda iyo madaxdooda aad u jecel oo rabana in wax lala qabto. shaqada muhiimka oo aan qabanaysin waxaa waaye inaad ku noqotiin dhulkii in la aado oo la soo arko oo wixii dhibaato jira la soo dirso, wixii laga qaban karana laga tashto. marka daraasadaas markii la soo sameeyo waxaan tagay magaalo Xudur la yiraahdo oo dad aad u tiro badan ay ku nool yihiin oo runtii magaaladaas ay nabad tahay ilaa habeenkii 6 saac 7 saac ee maqaayadahooda iyo wax kasta ay furan yihiin oo si fiican nabadgelyadooda uga shaqeeya min caruur ilaa oday haween dhalinyaro kulli ay heegan u wada yihiin nabadoodii. haddana waxa ay ka dacwoonayeen wuxuu ahaa madaxdii qaranka oo socota uma tagaan, lama soo tashtaan, ma dhiirigeliyaan. markaasoo kale waxay u baahan tahay in la dhiirigeliyo dadkaas, in laga fakaro waxa ay u baahan yihiin. waxay ahayd degmada kaliya ee ugu horreysay, degmadii ugu horreysay ee guddi degmo council laga sameeyo ee ugu horreysay hormuud ee u tahay guddiyada councilada la sameynayo. haddana waxaa ka maqan runtii dhiirigelintaas. haddii xildhibaanadii madaxdii kale ay tegi lahaayeen arrimahan way sii fidmi lahaayeen. haddaan meeshan soo istaagina waxaan uga faa'iidaysanaa hal jaanis oo kale. ayaantaan oo dhan waxaan ku jirnaa campaign ku saabsan doorashada 2020. waxaa la rabaa doorashada 2020 inay dhacdo. ilaahay idankiisa wayna dhacaysaa hadduu cimrigeena noo gaarsiiyo. hadday shalay 51 qof ee codaysay, maanta waxaan idiin sheegayaa 4 milyan oo Soomaali ah iyo in ka badan inay codayn karto. hadday 4 milyan iyo in ka badan codaysana waxa ay u baahan tihiin waxay tahay waxa ay u baahan tihiin waxa waaye midda kale inay ka badato. marka heeskii halkaan uu ka qaadayo ninka fanaanka uu dhahay weligiin soo jooga, weligiin ma joogaysiin, 3 sano idiin hartay, 3 sano kadib inaan doorasho galnaa la rabaa. shacbiga fariintaas u soo faray in doorasho la galaa la rabaa. baarlamaanka marka labadiisa aqal waxaan ka codsanaynaa shuruucda noo dhiman ee ay noo suuragelinaysa inaan doorashadaas qabano oo mas-uuliyadooda ay ayaga tahay in ay noo dedejiyaan oo shuruucdaas noo soo dedejiyo si doorashadii ay u socoto. hana lagu kaalmeeyo si cad aan idinkugu sheegaynaa in la qaban karo.